بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله xildhibaanka golaha guurtida iyo xildhibaanka golaha wakiilada ee labadaba laga soo doorto gobolkan Buuhoodle degmada Woodward maayirka golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle maayirka degmada Woodward madaxda kale ee kala duwan ee wasaaradda biyaha iyo wasaaradaha kale halkan ku sugan gudoomiyaha gobolka Buuhoodle iyo متشرفت كلية سلاكيش عيدا كغرنكا دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي مركز مشروع عنو كلا وبيات كنتم مقالو يديغان أبارك بيلاني كتشرتو باهن بيهي آدي أدبا كلي أنا يعد كستو دانين يسبا درين كي فرحدا إيو مارتي يرين تبا دوتشي يدي إني كوضا موقتا وأنا وحي الله اللوغو مهان نغوين المانتو بيش ديسمبر كوتاي لبكوني لبيا لباتاني وداق حديقينو وبلابينو قديست الريقي مقالة وودوود قبل كبوهودله ريقانو 500 متر baa la qodayaa sahankiisa waa lagu noqnoqday dhulka sarfey baa laga qaaday kii u dambeeyay 2 week ka hor baa laga qaaday marka sahan kasto la qaado 500 mitir waxa aad iyo aad u badan waa 1/2 kilomitir aad bay u dheer tahay laakiin waxaanu rajaynaynaa in ilaahay waxaanu doonaynaa inaga siiyo biyo ku filan oo wanaagsan oo macaan oo deegaanka oo dhan kaafiyo ilaahay inuu inaga siiyo baynu ilaahay ka baryaynaa shirkadda ku guuleysatayna sida hore loo sheegay waa shirkad reer Woodward riiguna waa riig cusub waa riig weyn ee kunka mitir qodi karaya 1 kilomitir buu qodi karaya marka dhinac kasta marka la eego wixii bini aadam ku xidhnaa waxa la wax lala haray ma jirto shirkaduna waxay la tahay inaanay halkan lacag u eegayni inay noqonayso in korkiisa biyo kama dhowro inay nafta dul dhigi doonaan hadii alla ka dhigo oo iyagoo de community ka socdo inta biyo doonayay way jireen imagana mar haday contract-giina qaateen riigiga qalabkiina ay hayaan waxba kala hadhi maayaan hantidan oo dhamina ay lagu dhisayaan waa miisaaniyadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wax dawlad kala bixisayna maaha waxeeda bixiyana maaha waa miisaaniyadda dalka ku jirta arintaasuna waxay ku timi qorshaha xukuumadda ee madaxweynaha ee ah in biyaha wax kasta laga hormariyo dawladuhu qorshay samaystaan halku dhig bay samaystaan strategy bay samaystaan waxa iminka u hormuuda oo madaxweynuhu amar ku bixiyay in wax kasta biyaha laga hormariyo meel kasta la gaarsiiyo taas waxay keentay dhaqaaq badan oo biyaha iyo wax qabad badan oo biyaha inta haddaan halka ku dhaafo gobolkan inta qura ma aha waxa laga qoday ceelal badan qaar kalena waa qorshaysan horta iminka isla bil kadib waxa bilaabmaya horfadhi oo isna ceel kala ah oo dheer oo kan oo kala ka dhigo sanadka horna de waati halkan magaalada inagu xigtaan soo marnay shulul waati ceelka laga dhameeyay waa la cabaa waa dhameystiran yahay halkan isagana ceelkii la oran jiray Goljarno oo isagana labadaba dawladda qoday xukuumadda Soomaaliland baa qoday waa ceelkii waliba markii dhaweed abaartu ugu xumayday dhowr jeer xumaaday dib u habeynta culus lagu sameeyay mar walba qalabka iyo wiishashka wasaaradda ay dul taagnaan jireen Buuhoodle magaalada dhexdeeda ceel baa laga qoday waa la socotaan waa mas'uuliyiinta oo dhammaantood iyaga furay dib u habeynta ceelasha ugu kharashka badan leh ee dib loo habeeyay waxay ahaan kuwa gobolkan waliba gaar ahaan Buuhoodle gudihiisa ceelka Faarax Bulaya bari dhawtay magaalada ku cabto waxa ku baxay lacagta ugu badan ee ceel lagu dayactiro waxaana bixisay Soomaaliland marka maaha mashaariicdu inta noo qura waxa iminka gobolkan soo socda wadooyin oo iyaguna dawladdu soo wada marka waxaanu inta idinku sheegayaa waxa weeye wax qabad kan Woodward qura maaha biyuhu dhinaca walba way idinka xigaan qaar kalena way idinku soo socdaan oo ka hor fadhi ka mid yahay
وقبل باهي كونتراكينا دواء هيد شركة دواء قاعدة سيدا يمكن يدوك بو قاعدة مركا دقا حدقي ينفر سماهم بحردي واحد لو كده من المتشلان مركا هدي مالها ولدن بدلان يا مالها يري عيان هو حوي والله حساب تمي wax ku soo darso weeydi maxaad ku soo darsatay waxa soo horumara waxaan markaa idinku mahad celinayaa soo dhaweynta ballaaran noo sameyseen iyo sida Somaliland iyo dadkeeda iyo deegaankeeda ugu heelantihiin iyo sida xildhibaanadii idinku baa u ballan qaadeen in wixii la taray inkastoo ay waajib tahay dawladdu aanay ku tar sheegan waxay dadka tarto dana dadka deeg gobtahay way ka abaal gudaano dadkii deegaanka karamka ah baa tihiin aniguna sida la sheegay gobolkan baan ahay marka hore gobolka Buuhoodle aniga iyo wasiirka Cabdirashiid Qambi labadeeduba gobolka waanu sheeganaa waa wada degnaa mar labaadka Woodwood anigu reer Woodwood baan ahay aniga inta garanaysaa way garanaysaa inta kalena waan isu sheegayaa ilma cali cadiis oo jooga ilma awaadan diiriye awad waxay dhaleen walaaladayda badayda waaweyn marka laba boqod baan noo bahdayda waaweyn waa reer Woodwood aniguna deegaankaan waxba kama fuliyo marka haddaan quraacdaa seexdo cidina iman mayse nin magaaladiisii jooga baan ahay nin degmadiisii jooga baan ahay nin dhinacna abtiyaashii la jooga baan ahay marka taasna sidaas ugu xisaabtamaysaan wixii mashaariic dambana intan ku dhamaan maayaan way isdaba hayaan dhaaman baa iman doona shayal kala iman doona wadooyinkaas iman doona wax badan oo horumar baa iman doona haddii la ka dhigo wixii inoo kale deeno yimaadey gacanta inoo haadiyana la xisaabtama waxa tiraadaan deedaar maxaad haysaa deel geelena isku sumada ila hadal noqon maysa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.